bismillahi raxmaan raxiim weli waxaan ku jirnaa booqashadii aan ku tagnay meesha lagu xanaaneeyo xoolaha ama xayawaanka ama isbitaalkoodaba aan dhahno. Marka waxaan arki doonaa, waxaan codsanay bisadda ama mukulaasha ama yaanyuurta midda u taqaanid maxay necab tahay in ay aragto wax walba oo ilaahay abuuray waxbay necab yihiin inay arkaan. Marka bisadda waxa ay necab tahay waa naloo sheegay waxay necab tahay gorga ama qajaar ama wixii kaloo adigu u taqaanid oo luuqadda aad ku fahmaysid ay tahay. waa arki doonaa marka wixii ay necab tahay ayaa dhowr bisadood lagu tijaabin doonaa ama dhowr mukulaal ama ama maaragtay sidii rabtaa ahaata magaceeda. Marka nala daawada wax yar walahi, laakiin wax yar oo aad u qosol badan waa. Marka waa ka heli doontaa si ila tahay. La soco barnaamijka, ha ka iloobin inaad subscribe dhahdi channelka, like and share, commentigana waa xaggaaga. waa arkaysaa sidii u boodayso. waxaa la dhihi karaa waa baraankii loo sameeyey bisad. wallahi waa wax funny. intaan weli ma aragto kaamirada inay aragtaa laga yaabaa. waa laga inkaarsaday. waxaa ka dhici doona meesha. xaqiiqatan waxaa jira sida la ogyahay dhowr bisadood ama mukulaal ama yaanyuur ayaa iska hubin doona oo si fiican u hubin doona waxa ay yihiin, kadibna isaga tegi doona. kuwana markii aragtida ugu horeysa ay arkaanba ayay bootinka qaadayaan. sida hadda midka aad daawadeysaan oo kale. labada bisadood waxa weeye in waxaa naloo sheegay mataane yihiin oo hadda midna ay ka boodday midna aysan ka boodin. bal midkaan aan aragno wuxuu sameeyo. kana aan aragno midaa iska hubinaya midna horu ka boodaya. hadda tan weegi weli ma arkin u malaynaa. wuxuu xayawaan waaye waxay ku mashquulayaan kaamirada agtooda taala. marka waa arki doonaa waxay sameeyeen. bal midaan la ag dhigay waxay sameyn doontaa.
cayaar oo ka dhigtayba ma arkayso.